maantana xogteena waxaynu ku eegi doonaa mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan adduunka hadday tahay dhan dhaqaale iyo xagga tiknoolajiyadda casriga ah. waa China oo sanadaha soo socda la rajaynayo inuu noqdo dalka ugu dhaqaalaha badan dunida. fadlan subscribe sar channelka haddii aad ku cusub tahay, muuqaalkana faafi haddii uu ku cajabiyo, kuna soo dhawow xog ku saabsan dalka Shiinaha. Shiinuhu waa dal ku yaala bariga Aasiya, waa dalka ugu dadka badan dunida. in ka badan 1.4 bilyan oo qof ayaa ku nool, waana dalka afraad ee ugu baaxadda weyn caalamka. 9.6 milyan oo kiiloomitir laba jibaaran ayuu ku fadhiyaa dalkani. caasimadda qarankuna waa Beijing. Shiinaha ayaa hadda noqday dalka koowaad ee wax soo saarka warshadaha iyo beeraha, isagoo dhaafay dalka Mareykanka. koboca dhaqaalaha Shiinuhu waxa uu safka hore kaga jiraa dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida, oo dhaqaalahooduna sida xoogga u kordhayo. China waxa uu soo saaray waxyaabo badan oo dunidu ilaa maanta uga mahadcelinayso. dalkani waxa uu caan ku yahay helidda waxyaabo aan hortii bulshooyinka dunidu daafurin. Shiinuhu waxa uu caan ku yahay tareenka ugu dheereeya dunida, waana gaadiidka ugu dheereeya dhulka socda. tareenkan waxaa la sameeyay sanadii 2007, waxaanu sanadkii qaadaa 1.44 bilyan oo qof. 302 mayl ayuu halkii saac jaraa sida la sheegay. waxay dalka Shiinaha ku qaadatay 70 sano inuu ka baxo saboolnimada iyo go'doomintii lagu hayay, noqdayna mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican. 40 sano ee la soo dhaafay, Shiinaha waxa uu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo dib u habeyn ugu sameynayo dhaqaalaha dalkaas.